shuruudana baan soo haddii internet fiican leeyahay oo hadduu internet fiican leeyahay ninka wariyaha ah oo isaguna bood la jooga bashir wadani ayaan siiyey haddii internet fiican haysto. Asalaamu calaykum. عليك السلام ورحمة الله. عبد الناصر سكور هو wallaahi bashir waan fiicanahay in adeer boqolkiiba boqol magaalada bohoodle horta waan salaamayaa adigana waan ku salaamay. maxaad war ka haysaa shirkii muqdisho ka soconayay bashiro waa dadweynaha la wadaagi kartaa. عبد الناصر عاد يا أبو محسن تهي وسلام يا ولاله سي exclusive بان أبي أخو سلام يا سيجارة عد كي سي في عن والله مغليا si wanaagsan boqolkiiba boqol. أنت أسمر كان كجدبو عبد الناصر ومحسن تهي كلي وحنفلي أصحاب تاعنا يجانا وان سلام يا سلام عضو قيمة بدن way kaa qaadeen. بعد السلام ولا الوحوي مقالة مقدشو سيدا وركبة كم غشان وحا كتشرة الشركي مدحوينها دولة فدرال الصومالية ودنا محمد عبد الله فرماجو iyo aan raahday dawlad goboleedyada Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. waxaa jira Cabdi Naasir warar soo baxaya oo sheegaya in Dani iyo Axmed Madoobe officially ay ogolaadeen in la sameeyo deegaan doorasho in la hirgeliyo maadaama ay markii hore diidanayeen magala. waan garta. intaas markaan ka gudbo Cabdi Naasir waxyaabaha kale ee aadka loo saadaalinaya waxaa ka mid ah inay jireen qodobo la isku hayay oo gaadhaya ilaa 5 qodob taasna wada hadalkeedii uu socdo laakiin ay jiraan qodobo ma garanaysaa ilaa haddeer natiijo wacan laga gaadhay xalintooda iyo in hawsha la hagaajiyo ma garato taasoo ay ka mid tahay in la sameeyo deegaan doorasho laga sameeyo Soomaaliya especially waliba goobaha mucayinka ah ee lagu talagalay inay doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaan ma garato. waan garta. si gaar ah haddaan Cabdi Naasir isu dul taago arrimahaas waxay noqonayaan sida la xaqiijinayo oo waliba media Soomaaliya aadka looga hadalhayo waxaa ka mid ah in gobolka Gado oo isagu 6 degmo leh 6daa degmaba ay deegaan doorashadu ay si toos ah uga dhacdo ma garato waxaanay Kismaayo hoos imaanin ma garato. waan garta. taas marka laga gudbo waxaa jira warar sheegaya in gobolada Sool iyo Sanaag iyagana la qoondeynayo in Puntland ay ka madax banaanaadaan doorashadooduna ay ka dhacdo Sool iyo Sanaag iyo Cayn. si gaar ah haddii aan u xuso 3 goobood 4 goobood ayaa mucayina sida la xaqiijinayo wararku ay sheegayaan degmada Buuhoodle oo hoos timaado gobolka Togdheer magaalada la yiraahdo Boocame oo iyaduna hoos timaado gobolka Sool iyo 2 degmo oo gobolka Sanaag ka soo jeeda gaar ahaan degmooyinka meesha la yiraahdo Baran iyo meesha la yiraahdo Laas Qoray labadaaba iyaguna inay doorashadu deegaan doorashadu ay ka dhacaan ma garato. waan garta. Cabdi Naasir waxaan malaynayaa kullee waa good news taageerayaashii dawladda Soomaaliya oo iyagu dhammaan jooga daafaha caalamka arrintaas waxaan malaynayaa kullee meedhal weyn bay u noqonaysaa Soomaaliduna in meel la isugu yimaado la heshiiyo oo dan Soomaaliyeed laga wada hadlo dawladda Soomaaliyana iyada shacabka Soomaaliyeed representative ah iyada leader u ah marka maadaama dalku uu maanta leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed runtii shacbiyada Soomaaliyeedna boqolkiiba 95 gacanta ku haysta waxaan u malaynayaa wararku way fara badan yihiin sidoo kale waxa la leeyahay warkan waxa laga yaabaa in la soo gabagabeeyo ama shirkana uu soo gabagaboobo qiyaastii 48 saacadood gudahood wax ka yar in lagu soo gabagabeeyo ma garan oo ku beegan haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah berri gelinka dambe saasa loo badinayaa ma garan. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya Cabdi Naasir in 3 habeen oo u dambeeyay maadaama uu shirku maalintii 3aad uu galay in 3 habeenba madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga la fadhiya oo ah hogaamiyayaasha maamul goboleedyada iyagu ay 3 habeenba ay dhafreen arrimaha siyaasadda iyo electionka Soomaaliya nooca doorasho ay Soomaaliya qaadanayso in waxyaabo badan runtii
aad loo falanqeeyey waqti badan la geliyey iyo juhdi iyo dadaal badan waxaan filayaa wararku kolley way iska badan yihiin insha allahu dad badan baa iyaguna runtii ila wadaagi doona oo iyaguna barnaamijka live ku jira bashir waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo doorashada Soomaaliya horta waa labaynu u kala qaadanaa waa arrinta baarlamaanka iyo doorashooyinka ay maamul goboleedyadu soo dooranayeen ay iska soo kaxaysanayeen baarlamaan iyaga ka amar qaata iyagoo markay doontaan ay u yeedhaan oo arrintaasi waxay ahayd arrin weji leh haddana waxaad moodaa wejigeedii in uu ka leexday oo sidii deegaan doorashadii awal horena khalad bay ku timi deegaan doorashadii baa haddana lagu wadaa ama lagu heshiinaya ama arrintaasi waxa weeye waa arrin markii hore marinka laga lumiyey dabadeetana hadda lagu celiyey waxaa kale oo jira oo anigu aan isweydiinaya ama aan la yaabanahay dadka doorashada u ordaya ee doorashada u cararaya ee ama xisbiyaha ahaadeen ama sharaxan yaa wanaagsan inay ka hadlaan xilliga doorashadu dhacaysa iyo sida loo qabanayo iyo nimankani maadaama aanay tartamayn arrintani soo arrin kaloo jahwareer miyay adiga kuugu muuqataa bashiirow bal halkaa dadka cabdinaasir waa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal walaale wanaagsan runtiina cabdinaasirow arrimahan kolley iminka soomaaliya ka soconaya waxaan u malaynayaa wax badan baa isbedelay nidaamkii dowladihii ka horreeyay dowladdan ay ku dhaqmi jireen waa garta tusaale yar haddii aan soo qaato waxaan u malaynayaa dowladdan waxay noqonaysaa dowladdii ugu horreysay ee hirgelaysa nidaamka axsaabta qaranka waxa loo yaqaano ma garato sax taas oo bayskeedu yahay in doorashada Soomaaliya lagu galo nidaam xisbiya ma garato sax weey taas dad badan baa runtii soo dhaweeyay arrinta kale walaal iyadana aad ka dhawaajisay waxa weeye qoliyaha mucaaradku ama qoladan maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedadu ama baarlamaankuba waxyaabaha inta badan ay dawladihii hore iyo kuwan ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah baarlamaankani imika xamar gudaheeda ka shaqeynaya Soomaaliyeed beelihii Soomaaliyeed baa soo doortay dadkii shacabka ahaa bay matalaan gobolada iyo degmooyinka ay ka soo baxeen oo ay ka yimaadeen marka loo eego percentage marka la siiyo 3 meelood 2 meelood iyo badh waxay taageersan yihiin madaxweynaha iyo xukuumadda hadda shaqeynaysa sax weey taas marka laga reebo waxyaabaha inta ugu badan ama muuqda waxaa ka mid ah in 7 nin oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan dawladda 275 weeye miisaankoodu 7 xildhibaan baa ka soo horjeeda aqalka sare marka loo eego waxa la yiri waxa ka soo horjeeda 15 xubnood marka dawladdu marka tira majmuucada marka la isku qaado dawladdu dadka labada aqalba way taageersan yihiin oo ay aqlabiyadoodii bay haysataa si kala hadii aan ugu dhigana waxa weeye shirkan iminka xamar ka soconaya nooca doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso marka la wada saxeexo sida aan filayo baarlamaanka Soomaaliyeed baa la horgeyn doonaa way ansixin doonaan marka kadib ayaa waxay u badan tahay in dawladda loo kordhiyo waxa la yiraahdo loo sameeyo extension waqti dheeriya waqtiga dheeriya marka la sameeyo waxa lagu base gareynayaa ma garanaysaa sanad iyo 3 bilood ama 9 bilood bay u badan tahay in loogu daro taasoo technically ah xilliga waqtiyada inta xilliga loogu talagalay xilliga doorashadu ay qabsoomayso ayaa loogu talagalay technically in inta lagu farsameeyo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan ciidamada ilaalinaya nidaamka doorashooyinka iyo ammaanka oo haddii caasimadaha ka dhacayaan iyo haddii ma garanaysaa deegaan doorashadu iyadana sidoo kale ay ilaalinayaan marka kulli rajadu hadda ma xumo Cabdinaasir okay bashir waxaan kaloo rabnaa inaan ku weydiino magaalada Taleex iyo Bohol waxaan maqnay mudaharaadaha ka dhacay looga soo horjeedo inaan la geyn karin baarlamaanka deegaan leeyahay deegaan kale arrintaas miyay jirtaa mise waa warar ku tirtaana Cabdinaasir arrintaas waa jirtaa sida aan warbixinta ku helay meesha la yahay Taleex iyo Bohol labadaba waxa ka dhacay mudaharaad looga soo horjeedo in Puntland iyadu ay xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn xildhibaanada ka soo jeeda in Puntland iyadu ay maamulkeeda lahaato oo iyadu ay gacanta ku qabato xildhibaanada halka ka soo bixi doona kadibna ay electionka iyo doorashooyinka ay ku gasho
iyagoo laba dhinac oo isgarabsanaya oo ah Jubbaland iyo Puntland. dadka deegaanka ka soo jeeda ee Taleex iyo Buuhoodle arrintaas mudaharaad ballaadhan bay sameeyeen, way ka soo horjeesteen, waxayna yidhaahdeen waxaanu doonaynaa in xildhibaanadayada naloo madax banneeyo, Puntland annaga nama matasho, deegaankayaga annaga u madax bannaan, xildhibaanada ka soo baxaya waxaanu doonaynaa in ma garanaysaa ay noqdaan xildhibaano madax bannaan oonay Puntland soo xulustooda iyo qorshooyintooda aanay shaqo ku lahayn. arrintaas cabdinaasir iyadu waa jirtaa, odayaal deegaanka ka hadlay sidoo kale oo warbaahinta la hadlay waxay yidhahdeen arrintaas waa faragelin baanu aragnaa. sidoo kale markii ay hadlayeen dadka deegaanku oo warbaahinta ay la hadleen waxay la hadleen madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda magaalada Muqdisho ka dhisan oo ah dowladda Soomaaliyeed. arrintaas iyadaa nagu matasha bay yidhaahdeen dowladda Soomaaliya ma garad. waa sax wey. waa yahay Bashir, waad mahadsan tahay. arrin kale oo waxaa jirta horta marka ugu horeysa aragtida dadweynaha iyo waxa waaqaca horta waxa weeye waa kala nooc. arrintan waxaa sameeyey ama khilaafka intan la-eg sameeyey ama dhibaatadan ama jariimadan waxa ka galay dadkan oo meeshan weli cid kale ma gelin, waa madaxweyne xasan gaarguurte. ma la eegayaa oo hadda xasan gaarguurtena doorashu u ordaya, haddii uu soo laabtana tanoo kale way imaan doontaa ama mid ka xuni way imaan doontaa. arrimaha laftooda hoos ma loo eegayaa ama dacwad xasan gurguurta lagu qaado ha noqdo ama mudaharaado ka dhanahoo lagaga hortago ha noqdo inaan la dooran ama in dembiyadiisa lasoo bandhigo oo la caddeeyo. ilaan qofku markuu dembi galo waa in la caddeeyaa. hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka celiyey sheekh shariif iyo diyaarada ka reeba, dacwad bay furteen, dabadeetna maxkamadda sare la geeyey, dabadeetna 30 milyan bay heleen oo ay qaateen. arrintanna waa shiqsi, yacni waa shiqsiyaad qof gobollo ka galay dembi haddii dowladda la horgeeyo. hadda madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo markii ay Joe Biden ay tartamayeen waxaa lagu eedeeyey dowlad ka midaba waxaa la yidhi idinku dacwad ku ooga in uu khalada galay. marka haddii la eego oo inta dowladdani joogto xasan garguurte soo xaq looma leh ama mudaharaado ka dhana waa qofkii shalay sameeyey dembiyadan intan leeg ama goboladan duudsiyey ama gobol madax bannaan oo Soomaaliyeed oo uu madaxweyne u wada yahay. waa ninkii yidhi idinku soo doorta iyadoo musuq maasuq iyo ay jirto iyo corruption uu jiro. xaq miyaan loo lahayn in mudaharaado ka dhana ama lagaga hor yimaado ama dacwadba loo furo oo maxkamadda sare la geysto? arrintaa bal iyadana ka warran. cabdinaasir waa mahadsantahay walaal, waa su-aal wanaagsan. waxaan filayaa de kolley musuq maasuqu iyo corruptionka caalamka oo dhan buu ka jiraa, especially weliba qaaradda Afrika ayuu si gaara ayaa loogu sheegaa. oo weliba hay-adaha ku shaqada leh waxay la yidhaahdo corruptionka iyo wax isdabamarinta iyo tuugaysigu inta badan waxaa lagu sheegaa qaaradda Afrika oo iyagu ah goob runtii aan haysanin nidaam iyo administration buuxa marka loo eego caalamka horumaray. taas marka laga yimaado waxaan filayaa qof kastaba cabdinaasir oo waxaa jira caalamka waxaa jira wax la yidhaha accountability, qofka in lagula xisaabtamo waxa uu qofku isagu geysto oo khaas u ah, hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu xildhibaan yahay, in lagula xisaabtamo waa waajib, in lagu mudaharaadana waa waajib, in maxkamad lala tiigsadana waa waajib. marka waxaan filayaa xasan sheekh maxamuud dee ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu dambi ka galay, si gaarana gobolladan uga galay, waayo waxyaabo badan oo gobolladan xaq u lahaayeen oo xuquuq lahaayeenna runtii muu fulin. waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal noqonaynin haddeerto in xasan sheekh maxamuud isagoo xisbi Soomaaliyeed ka sharaxan inuu dib u soo noqonayo anigu ma qabo, waayo godololooyin fara badan iyo waxyaabo badan oo hore ayaa jiray oo runtii shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba ay si gaara ay ugu tilmaamayeen. marka insha Allah gobolladana Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan rajeynayaa cabdinaasirow weliba adigu aad ka soo jeedo inay xuquuqdooda heli doonaan insha Allah. laakiin nidaamkan doorashada ee Soomaaliya haddii uu dhan u dhaco oo nidaamka nooca doorasho Soomaaliya ay aadayso lagu dhawaaqo, waxaan filayaa natiijooyinku way isfurfuri doonaan, hawluhuna way hagaagi doonaan insha Allah.
waxaan fursad siin doonaa dadka iyaguna barnaamijka sida live-ka tooska nagula jira cabdinaasir. bashiirow intaadan Waa khadka mahadsan. naga bixin laba su'aaloodun baan rabaa inaan ku weydiiyo haddii arrintii hore ee xasan sheekh soo bilaabay ay hadda Okay, ay cabdinaasir. dib u soo noqoto maxaa idin qorsho ah maxaa qorshuhu yahay ama maxaa lagaga fal celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan iyadana ku weydiiyo arrin maalin dhoweyd baraha bulshada ah ka socotay ninka la yidhaahdo nuux taani oo ka dhex qodbadaynayay reero dhulbahantaa dhexdood dadka shirarkoodana aanay wanaagsanayn in cid kale soo dhex gasho oo isu ballaminayay iyo weliba wiil dhallinyaro ah oo layidhi waa lagu xidhay labada arrinna noo iftiimi bashiir oo haddii ilahay ka dhigo oo sii degnayna cabdinaasir waa mahadsan tahay walaale. waa laba su'aalood oo macquula. insha allahu ma doonayo inaan dhadheereeyo laakiin waxaan doonaya inaan soo koobkoobo soo koob sida caadiga. waay su-aasha ugu horreysa haddii aan ku horreeyo ninka la yidhaahdo taliyaha ciidanka ee somaliland nuux taani oo isagu ka hadlayay munaasabad beelo dhulbahante oo dirir iyo dagaallo ay ka dhexeeyeen isagoo ka hadlayay hadalkiisa marka loo eego dadka goboladan degan sool iyo sanaag iyo cayn runtii falcelin badan baa laga sameeyey. dadku waxay u arkeen hadalkaasi inuu yahay hadal qadaf ku ah isu oo ballamin aanay u cuntamin. isu ballamin isu ballamin exactly marka runtii waxaa loo arkay hadal qadafa oo yacni mas-uuliyad nin weyna wuxuu ku hadlana aan ahayn iskana hor keenaya bulshadii iyo qabaa'ilkii deegaanka deganaa. arrintaas waxaan u malaynayaa kolley sida aan wararka ku helayo waxaa jira odayaal iyo waxgarad iyo dhalinyaro aqoon-yahaniina oo deegaanka ka soo jeeda oo doonaya arrintaa inay ka falceliyaan oo ay ka hadlaan munaasabadeeda iyo xilligay ku beegan tahayna insha allahu si mucayanan doonaya inaan ugu soo gudbiyo haddii maasha allah waay taas marka laga gudbo arrinta kale haddaan usoo noqdo xasan sheekh maxamuud cabdinaasir waxaan u malaynayaa xasan inaanu soo noqonaynin anigu saan qabo maya lacalla waxaan dhahay haddii wixii uu sameeyey bilmetel oo maxamed cabdullaahina iska sii qaato ay sii socoto oo la yidhaahdo puntland ay sidii qaladka ahayd ilan deegaana deegaanka mas-uulka ma ahay sidii isaga soo magacaaba baarlamaan dad leeyahay arrintaa maxaa laga yeelayaa maxaa sideese looga falcelinaya cabdinaasir horta waxay ku quman tahay waa su-aal wanaagsan walaale. waa arrintaas waxay ku quman tahay waxa weeye in dadka deegaanku ay ka hadlaan arrintaa haddii ay dhacdo weeye waa hadday dhacdo lacalla waa haddii ay dhacdo maasha allah inay dadka deegaanku ka hadlaan waa ku sii daynanaa bashiiro waxa weeye walaale haddii qofku uusan ka hadlin ujeedka iyo danta uu leeyahay oo weliba khuseeya arrimihiisa sida gaarka ah ee deegaanku u leeyahay haddaynay ka hadlin soomaalida maanta joogta cabdinaasir waxaan u malaynayaa kabaha la isla dulmaraya. laakiin haddaad ka hadasho mowqifkaaga oo aad caddayso oo aad tiraahdo arrintaas ma suurtoobayso waxaan u malaynayaa dee ummadda soomaaliyeedna waa arkaysaa adduunka oo dhanna waa kuu soo jeesanaya marka dadka deegaanka ayay tahay arrintaa inay ka hadlaan ma garat maasha allah waa ku sii daynanaa bashiir oo aad iyo aad baad u mahadsantahay 100% reer buuhoodloo dhanna nagu salaam bashiiro cabdinaasir aad iyo aad baa u mahadsantahay insha allah khayr badan baan idin rajaynayaa dhammaantiin adiga iyo walaala asxaabta waay anaader